asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha dhammaan meel kastoo joogtaan iyo si kastoo ii maqlaysaan waa muuqaal kale oo cusub. waxaynu soo gaarnay doorashada twayda camera 2020. walaalaha dhammaan saa hore u iclaamiyeyba doorashooyinkii ayaa nagu soo haayaa fooda. doorashadan waxay ka daaran tahay ama doorashadan waxay muujinaysaa in horta dowladdii way dhacday, waad la socotiin bishii juun sanadkii lasoo dhaafay isku dhici ururadii la shaqaynaya inuu ka baxay ninkii cunsuriga ahay. sababaha ugu weyna waxaa waaye asiil balaytka kowka qaxootiga arrimihiisa laisku qabtay. qaxooti wuu iska leeyahay laakiin waa ajnabi dhaceeb waaye. warkoo kooban waa nin aada u taageera oo qadiyadda kaza aada uga soo horjeeda oo aada u taageera israa'iiliyiinta oo bal ku titaaba ereyada uu netanyahu soo guuriya ayuu asaga mararka qaar uu banaanka soo dhigaa. mar gooniyan ila wadaagi doonaa ninkan waxyaaluhu aaminsan yahay iyo afkaartiisa gaarta. dhowr marna waan ka hadlay janalkeena, laakiin dadkeena inay ku baraarugaana la rabaa. haddii aada nin noocaas aragto dowladda ku jiro, adiga muwaadinka qaxootiga muslimka soomaaliga wadankaa yimid qaaradda afrika yimid ama sharciga weyn hel ama mid yar hel, maxaa kula gudboon quduu xidrakum, macnaha digtoonidiina qaata oo diyaar garooba oo idinka is aruursada. laakiin dadka soomaaliyeed waxyaalahan kaga yaaba waxaa waaye maalintuu baahan yahay oo uu faqiirka yahay oo qof wanaagsan yahay intii ilaahay u naxariista mooyaane wax kasta mudaaci waaye, qof wanaagsan waaye, xaalkiisa waa boqol waay. maalintii qol yar la geeyo ama uu guri gooni helo ama shaqo yar helo, ninkaan taqaano maba aha, ma fahamti. meelaha ay dadku ku kulmaan ma taga, arrimaha masiirka kama hadla, kama qeyb gala, gurigiisu isku xiriya asiga caruurtiisii islaantiisa ama islaantii caruurkeeda ama islaantii ninkeedii. walaaladeedii saas uma shaqaysa adduunyada. qolo aanan community lahayn, isku xirnaasho lahayn ma shaqayso. daliil baan idiin sheegay, nabigeena wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, haddaad 3 qof tihiin waa inaad qof samaysataan amiir. haddaad 3 soomaali 3 faamili magaalo degan tihiin tuulo, samaysta nidaam yarood isku waafaqdaan danihiina guud. iska daaya hebel lama hadla iyo heblaayaan necbahay iyo isma qaadan karna iyo reer fulaan waayo reer qasax. haddii aad saas ku socotaan meeshaanaad ku baabi'aysiin, wax jirana noqon maysaan. fiiriya turkida, fiiriya maxay leeyihin, meeqa hay-adooday leeyihin. fiiriya marokaankii, walaaladii marookaanka oo qolada ugu khilaaf badana haddana waxay leeyihin umbrella wax la dhahay ama dallad guud oo danahooda ka shaqaysa. miyaysan idinku jirin dad caqligooda shaqaynaya? miyuusan alaysa minkum rajulun rashiid? miyaan lahayn, miyaana la helaynin? waa la helayaa, laakiin waa inaad usoo banbaxdaan waay. shaqadeyda aadayaa, danahey gaarkan ka shaqaynaya, waxaa waa muhiim, laakiin danta guud inaynu ka shaqayno oo maslaxada guud fiirino waa muhiimad gaari ku leh. warkaas haddaa intaa uga baxo, mararka qaar arrimaha soomaalida markaan ka hadla runtii confusion ka qaadaa. waxay suubinayaan ii muuqata, madaaristoodan arkaya, waa dad iyaga un isku diray. marka wax kaloo dhihi kara ma lahan. ilahay waxaan ka baryay ummaddan qur-aan saaray u baahan tahay gudaha iyo dibaddaba. intaasaan uga gudbiyey erasta camera. doorashadii waxaa jira doorashooyinka holan ka dhaca dhowr ay u qaybsamaan. doorashooyinkaas waxaa ka mid ah doorashooyinka halkan ku qoran erasta camera, baarlamaanka ama lagu magacaabo erasta camera, annagana u naqaano maaragtay aqalka sare oo wuxuu noo qabta lahayn oo qabiil iyo balaayo wax lagu geeyey. ninkii doonana iska xira iska dhaafan. waxaa la mid ah twayda camera oo master ansaxa taqaana idinka kolley ku caanbaxay. dad gaar ah oo cilmi u lahayn intii loo dhiiba waxay rabaan iska sameeyaan. dastuur unbaa inta badan la yeelaa, ma raba inaan ka hadla, laakiin dastuurka soomaaliya keena annaga ka jiro dib u akhriya waa dastuur faasid waay. bal iska dhaafo wax badan shareecada islaamka ka hor imaanay. haddaad akhriso, haddaad akhri kartood wax akhri kartood af soomaali akhri karto, qofkii doodas qabo waa usoo bandhiga hadduu doonayo. insha allah ila soo xiriir, waa kuu soo bandhigi doonaa inuu dastuurkaas wax badan ka qaldan yahay oo ay magaati iyo meelahaas lagu sameeyo annaga shaqa aanan ku lahayn. twayda camera
toyada camar waa tan hadda dhici doonta nuguma aqalka hoose doorashadiisa waa kan ra-iisul wasaaraha lagu soo doortay waa midda aada muhiimka noogu ah oo saameynta nagu leh waa meesha wax laga badbedelo waxaa kaloo jira provinciale farkiisin toyada farkiisin macnaha camarkan ku qora waxaa la dhahaa provinciale farkiisin doorashooyinkaas waxaa kaloo jira qamentlik farkiisin doorashooyinka qamentiga waxaa jira eurobesa yurub dadkii baarlamaanka ay dowladda dhexe u dirsanayeen doorashooyinka maadaama ay sidaas yihiin arrintan waxaa noo soo sponsor garaysay sida caadiga ah skn walaalaha dhammaan marka waa urur ka tirsan magaalada nijmegen oo lagu magacaabo istiqti somaalish khamiis khab nijmegen walaalaha dhammaan meel kastoo joogto waxaan rajaynaynaa aniga waxaan ka ahay qeyb walaalaha wixii wanaag baan kala shaqeeyaa inay ummadda horumarto unbaa iga muhiimsan qofkii maamulaya shaqadeyda maahan doorashooyinkaas marka waxay ka dhici doonaan 12 gobol uu ka kooban yahay wadankan ama lagu magacaabo 12 provincin inkastoo sida asalka luqadda markii la baranayo 13 gobol uu yahay oo lagu daro latin america laakiin asalka waa 12 provinci ayuu ka kooban yahay wadankana deganahay waayahay doorashadan maxay noqon doontaa toyada camar farkiisin waaye waxay dhici doontaa 29 Oktoobar 2025 maalin arbacay dhaxda xasuusno 10 fiidnimo waxaa la bilaabaa 7 subaxnimo ilaa habeenkii 3 saac habeenimo bay jirtaa awalan waxaan ka hadli doonaa qodobka koowaad wax lagu magacaabo stampas haddii doorashaad galayso waxaad u baahan tahay lagu soo diro warqadii doorashada lagu galaayo stampas waa hal u dul maray kadib waan ka gudbi doonaa si caado shan haddaa marka iman andres rabta qof kale inaad u doorato lati steme waxyaalaha laga rabi doono kasoo qaada ilmahaagii oo shuruudda waxaa horta 18 sano inuu jiro qofka akhtin yaare qofkii jiro unbaad doorashadan ka qaybgeli kara oo baasaboorka hollandeeska haysto haddii qof uu degan yahay holland baasaboor maraykan canada u wato muddo 5 sano isagana waad codayn kartaa marka qof kale ma u codayn karaa isagana waa arki doonaa steman n andra khamenty magaaladeedii maantay doorasho ka jirta laakiin meel kalean ka shaqaynaa qameyti kale maka doorasho maka samayn karaa waan ka hadli doonaa stamo od Puntland dibadda maka soo codayn karaa waxaa jira stambiros xafiisyada laga codeeya intaasuu qaybsamay aan u horeeyo waxyaalaha shuruudda laga rabo forward omtikhan mut volgendingismeeneem waxaa laga rabaa marka doorasho aadayso stambasa laga rabi doonaa waxaa laga rabi doonaa identity device ID-gaaga dabcan ama Netherlands passport waxa haysato device of Netherlands identity intaas inaa haysataa muhiim ah haddii marka shuruuddaas forward identity-ka haddii European Union uu qofka kooban yahay oo Underland oo ka yimaaday EU legislate sida Iceland Liechtenstein Norwegian haddaa ka imaatay dhammaanba Switzerland maq waa lagaa samayn kartaa laakiin shuruudda waxaa waaye 5 sano in dokumentiga aada safar loob ahayn 5 sano wadanka degan yahay dabcan waa qofkii laga bilaabo 3 Oktoobar wixii ka dambeeyay 2020 wixii ka dambeeyay waa sidan kuu soo sheegay oo ku eray 5 sano ma fahant aan dib ugu laabana markaan hal aan wax yar falaqayno walaaladeyda meel kastoo joogta stambas muxuu yahay stambaska waxa waaye dabcan sida asalka qofka stambaska waa midkaasaan joognay stambaska waxaa laga rabaa inuu qofka Netherlands nationality haysto 18 sano wixii ka weyn ahay oo asaga kiis raaqtay yahay oo go'aan u qaadanayo ma fahanti marka haddii sidaas tahay oo qameetigaadana aad in iskhrayfan ku tahay 15 September hadda aan ku jirno 30 Maris maanta waa 2 Oktoobar waa ahaa 15 September 2 usbuuc ka hor waa inaad qameetiga in iskhrayfankeed hadda laati iskhrayfan tahay howshaas ma jirto waxaa ku xiga marka lokasi stambirog waxaa waa lokasiga meelaha la rabo in aad doorashada ku gasho waay marka liisa lagu siin doonaa liiskaas ayaa ku soconaysa marka kuwaas waxaa ka samayn kartaa waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid ah marka stama samaynayso
inaad soo qaadato. haddii rabto marka wixii barboosta ku imaanaya online waa jiraa barboosta, haddii adiga dhiiqdhiigaada gasho waa jiraa. marka laakiin waxaa muhiim ah barboosta laguu soo diri doonaa waxyaalaha raadi. iman andres ma u samayn karaa gudubna, qof kale ma loo samayn karaa, qof kale ma u samayn kartaa, laba xalle ugu samayn kartaa. qof kale inaad scriptlig maktin qofkii ka hayso ood sii dirto, ma fahantay 24 October ka hor aad sii dirsato, iyo inaad stamka maaragtay warqadda stamka gadaal waa ku qoran full makti wax la dhahayo, kaas inaad seexida qofka koobi dokumentigiisa inaa kasoo qaadato. ilmahaaga iskool jiro idgiisa koobi waa inuu ku reebo, gadaalna waa inaad labadiinaba aada seexidaan oo gadaal meel dambe stamka baas gadaashiis meel la saxiixayo ayaa ku taal. waay intaas waa isla fahnay. waxaa marka usoo gudbaynaa qodobka ah sistema andra khamiinti kale maka doorasho ma ka geli karaa. khamiinti kale doorasho waad ka geli kartaa. marka waxaa u baahan tahay kiisbas, warqadii doorashada lagu gala u baahanaysaa. anfraakhan mokhlig waay, waxaad ka samayn kartaa ilaa 24 October. 24 October waa inaad warqadda samaysato. broseska wuxuu qaadanayaa 3 isho. haddii 24 uu dameysa 27 waad helaysaa. marka barbostana lagugu soo diri doonaa insha allah. qamiitiga markaas aad kiisa samaynayso waa sheegaysaa oo foomka ayaad ku cadaynaysaa, idgaadaad diraysaa. marka formaliirkaas ayaad samaynaysaa, ma fahanti. anfraaqakaas ayaad ka samayn doontaa. xaggee ka samaynaysaa? online anfraaqana ka samaynaysaa, dhiiqdhiigaada ku galaysaa. intaas waa isla fahnaa umalaynaa. waayahay qodobka u dambeeya oo ah Stemmen van Ooit het Buitenlander, wadanka dibadiisa doorasho qof jiro ma geli karaa? wadanka dibadiisa haa waa geli kartaa 29 October, laakiin waxaa lagaa rabaa websiteyo dhowr inaad isku qorto. 2 xaaladooda macquul ah in dadkaaga aada maktin siiso sidii hore aad samaysay oo gadaal aada u seexdo koobi u reebto. laakiin waxaa laga hadlaya waa taadilig waqti kooban kasoo qad safraa ku socotay 2 bilaa maqnaanaysa doorashadii kusoo toostay. marka qof kale ayaad samayn kartaa inaad weydiisato, ama registraasi waxaa ka samayn kartaa mandanhaag wax la dhahay, ma fahanta. registraasi kiisan Buiten Netherland oo Mandenhaag halkaasaa ka samaynaysaa. hal mar ayaa qofkaas reedankii waxaasaa lagaa buuxin doonaa, hal mar ayaa loo ogolaanaa. imaa laakiin haddaa u guurto wadamo kale, wadamadaas ambasaadahoodaad soo maraysaa insha allah. marka walaalaha dhammaan meel kastoo joogtaanba waxaan rajaynayaa arrimihii doorashada ku saleysnaay wixii su-aal ka soo baxa idinka unbaa ila soo wadaagi doontaan. laakiin fariinteyda waxay ku socotaa qof kastoo soomaaliyeed ee jooga wadanka Holland ee haysta dhalashada wadanka Holland, fadlan codeey. waxaad ka codeynaysaa xisbiyada dadka danaha gaarka ka shaqeyna. dhowaan waxaa soo bandhigi doonaa gabar soomaaliyeed jirtaa la yiri, informationkeeda waa ku daba jiraa iyo biogaraafkeeda insha allah. gabadha soomaaliyeed informationkeeda markaan soo helo waa la wadaagi doonaa dhowaan degdeg insha allah intaan waqtiga la gaarin. xisbiyo kalena waa jiraan oo qadiyadda Falastiin aad u taageera oo danka loo yaqaano. marka qofka waa inuu doorasho galaa. in aad guriga iska fadhiso, hooyo 5 caruuraad tahay, caruurtii gaarin, adii 5taadaba codeeya. aaba familiyaa tahay codeey, singalaad tahay codeey. tag meelaha xil isa saar, mas-uuliyad qaado. waa inaad codeysaa. waxa loo dal leeyahay waa adiga. annaga waxaynu nahay mindarhayd dadka yar, waana laga tira badan yahay. marka ha la dadaalo insha allah. walaalaha soomaaliyeed waa dadaashan, khayr allah idin siiyo. ha lagu dadaalo inaan sanadkan doorashada wax badan ka qayb qaadano. runtii waxaan aada uga xumahay ninka cunsuriga dad badan muslimiina doorteen waagu ku xamaasoonayo dhahayay wax badan baa bedelaya. magacyadooda ma sheega wadamadaas muslimiinta hadda way ka shalaynaan.
wuxuu taagaya asaga 2035 waxay qabsan doonaa muslimiinta qabsan doona wadanka waxaasoo aaminsan yahay ilaa 2050 wuxuu ku leeyahay muslim la wareega wuxuu ku leeyahay magaalado dhan waxay noqonaysaa magaalo xijaab magaalado dhan waxay noqonaysaa magaalo masaajida laga dhiso magaalada iskoolada dhan waxa loo bedeli doonaa iskoolo islaamic bal trama media la soo istaagay waad arkaysa UN-ta wuxuu leeyahay London sharci low laga dhaqan gelinaya oo Paris laga dhaqan gelinaya oo Amsterdam laga waxaas ku sheekeynaya maartay xisbiyada midigta fog marka walaalada hurdada laga kacay insha Allah khayr badan baa idin rajeynaya waxaan kaga tagay amaana Allah